Sidro magac dumar oo Islaami ah, qurux iyo barako xambaarsan. Sidro waa magac dumar oo asal ahaan ka yimid Carabiga laguna qoray sitro. Waa magac ku xiran Quraanka Kariimka ah, waxaana uu leeyahay macne qoto dheer oo la xiriira geed barakaysan iyo meel sare oo janno ah. Macnaha magaca sidro. Geed barakaysan Sidrat al-Muntaha waa geed qurux badan oo ku yaala jannada sare, waa meesha ugu dambaysa ee malaa'igta iyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam qaaday habeenkii Israa wal Miiraaj. Astaanta quruxda iyo xurmada. Macno ruuxi ah, mid tilmaamaysa qof nadiif ah, sare u kaca iyo ruux barakaysan leh. Magaca sidro wuxuu astaan u yahay xurmad, barako iyo meel sare oo Ilaah u dhow. Sifooyinka gabadha magaceedu yahay sidro. Qalbi nadiif ah, sidro waa gabar leh naxariis, cafis iyo samir. Quruxda dabiiciga ah sida geed barakaysan waa qof muuqaal iyo dabeecad qurux badan leh. Iftiin ruuxi ah waxaa laga dareemaa iftiin iyo xasilooni. Dadkuna waxay ku nastaan agteeda. Deeqsinimo aad bay u daryeeshaa dadka, kalgacayl iyo naxariis bay ku dhex leedahay. Sumcad sare waa gabar lagu qiimeeyo akhlaaqdeeda iyo doorkeeda wanaagsan. Gunaanad. Sidro waa magac Islaami ah oo xambaarsan qurux ruuxi ah, barako iyo xushmad sare. Waa magaca gabadh dadka iftiimisa oo leh xiriir ruuxi ah oo qoto dheer. Haddii aad dooratay magaca sidro, waxaad dooratay magaca gabadh janno u dhow oo leh qalbi nadiif ah iyo haddii aad rabto inaan ku fasiro magac qurux badan, fadlan qaybta faalada noogu reeb ama kommentiga.